شعب مدحيه كلا حبالي الدوركي نوقعو هيا كودي سنو ورداياها توسيو هاي الأمة دوهو هاي الأمة دوهو وحبل منهر هرات سنين عبارتها دود الليل يركان يدو نقبضني مانتونو بحيلا هوجامي ددوينه هدارنا هروسعو هيردوغلي هرابيالي شعبيكو هوجاميو هرساتكونا يو غلدين هوجامي ددوينه هدارنا هروسعو هيردوغلي هرابيالي شعبيكو هوجاميو هرساتكونا يو غلدين هوجامي ددوينه هدالنا هروسعو هيردوغلي هرابيالي شعبيكو هوجاميو هرساتكونا يو غلدين annaga waxaan idin wadaa ninkii maqaabul reesacad baa lahaa godkan reesacad baa lahaa godkan aan hadda taagannahay maqaabulna wuu nala lahaa oo wuu nala joogaa mid koobaan ka ahayn sacad iyo makaahil wixii isla joogay ninkii ay soo qaateen oo in laba dhal laga dhigan la raba laba dhal markii hore ugub buu ahaa geedi socodka siyaasadeed baan wadnaa waxaan raadinaynana waa kursi kursiga aan raadinayna ninkaasaan u raadinaynaa cabdirasaaq bare waxaa waaye codkaada waa xaqaada nin walba ninkuu rabo wuxuu xaq u leeyahay inuu u rido nin walba ninkuu rabo ayuu xaq u leeyahay inuu u rido laakiin waxaan codsanahaynaa aan baryahaynaa inta lag boqol ku nool waxaan ka baryaynaa inay codka noo siiyaan ninkaas idin mahad celinayaa sida aad noogu soo baxdeen ood noo soo dhowayseen ood noo qaabisheen ood qorraxda noogu taagan tihiin boqolkiiba boqol waan idin mahad celinayaa intaa bacdigeed waxaa lahay sahan iyo dhaanba meeshii laga filay ay ka soo baxaan berigii la dhaansan jiray meeshii loo dhaamiyu dhaanka ka imaan jiray sahanna meeshii loo saamiyu musaan yuu ka imaan jiray annaga waxaan wadanna waa siyaasad iyo doorasho kambeyn aan ku jirnaa geedi socodka annaga waxaa waaya siyaasad waxaan wadnaa nimaa taqaanaan lagboqol ku dhashay qootee buu ku dhashay ninkan qootee buu ku dhashay qoox meesha la jiru ku dhashay xilna wuxuu ka qabtay lagboqol saw mar labaadna tolkii baa soo qaatay waxaa la dhahay mahmaada soomaalida ama ugubgada ama aqoon gado annaga hadda aqoon baan ku wadnaa ninkaa ugub maaha ugub idinkaa doorateen waa mar labaadaan soo xulnay muqaabul wuxuu soo qaatay ereyan lag boqol dadkii degganaa markii la rogrogay oo la rogrogay oo la gegediyey oo muddo badan la fadhiyey waxaa la soo qaaday cabdirasaaq baa la soo qaaday waxaa loo soo qaaday weli nimaa dabbaalaqoonni wuu ku dhintaaye ninkan asagaa 5 sane hore gale inuu ka dabbaalan karo adiga bax meesha ninkii ka dabbaalan kara webiga asaga siyaasadda waa balaayo way ku qaadi waa webi xoog badan waay ninka ka dabbaalan kara ee arkay mas-uulka naga ahaa ee wixii dhima dhammaystiri kara ee wixii ka xumaaday dib u hagaajin kara inuu asaga yaa horta loo soo qaaday waxqabadka waddanka yaa loo soo qaaday horta baxdii uu ka dhashay way fadhiisatay dhalinyaro fara badan baa ka taagneed waa la gedgediyey asaad baxdii la soo baxday beesha maqaawalo uu ka dhashay dad asagaa la soo baxday
midda kale nin uu muqaabul soo qaatay oo intanoo gurmad loo soo maray oo intanoo nin oo ay socota ay dhinacyaha ka wada inaan kuuraheenna kala leex jeclaanno may dhici kartaa waa maye waxaan ku leeyahay soo dhawaaw waa ku dhawaynaynaa walaalkaan baan nahay cod baan kuu haynaa alaykum reelag boqol waad mahadsantihiin salaha oo mar hore na soo maray haddana raadinhaaya waa wiilkayni haddana sidii baan ku wadnaa mideeda kale gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka aniga saas baan leeyahay wax kaloon leeyahay malaha waxaana ka midaysan aan u malaynaa cabdirasaaq yaan ka midaysan hal mar waxaan rabaa inaan dhahda cabdirasaaq taano teena inaan dhahnaa rabaa cabdirasaaq 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ريلك بقول قبلها أنك شرفت له dhalinyarada annada meeshan joogaan oo sharafta leh iyagana odayaasha halkan joogaan iyo culummada meeshan joogta iyo dhammaan nin walba maqaamku ku taagan yahay halkan iyo fadhiga uu ku fadhiyo nin walba title buu ku fadhiyaa title uu ku fadhiyaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaa taa ka baxa cabdirasaaq waa taqaaniin cabdirasaaq waa ninkan hadda taagan oo hortiinna taagan waaya oo haddana kursiga ku fadhiya oo kursiga xilkiisa dhammaanin weli ku fadhiya yaa waaya cabdirasaaq oo haddana xilkaas raadinaya reelag boqol manka maanta maxay farxad ii ah inaan maanta hor taaganahay reelag boqol oo aan maaragtay wada hadlahayna ayaa farxad ii ah reelag boqol maxaan u sheegayaa hadalka waa la dhammeeyey waan hadli looma hadla marka inaan u sheegaan rabaa aniga wiilkii shalay aad doorateen ayaan nahay maantana waan taaganahay sababtaan u taaganahay waan ii sheegayaa cabdirasaaq muxuu fuli waaya hadhihiina sababta inaan ii sheegaan rabaa taa ogaada reelag boqol reelag boqol maxaan u sheegayaa anigoo cabdirasaaqa meeshan taagan aniga reelag boqol maxaan u malaynaa nin walba qoys muu ka soo joodaa soomaalida runtii oo khaasatan reer wajeer south cidaha ree abbahay nala degan ajuuraanka iyo dagoodigaba wax ay nooga fiican yihinaa jiraa waxaa la dhahaa doorashadan runtii qof markuu soo gala waxaa la dhahaa fur oo tuur ninka 5 sano markuu dhammaysta inuu maaragtay 5 sano u dhammaysta ka bacda la tuuraya reer wajeer south aad lagu yaqaanaa beeshii aan ka dhashay middii iidahayd maxay dhahay inaan bayntaynaan rabnaa saas baan u socdaa horta sababtay tahay reer wajeer south waa ognahay mb 10 sano loo dhammaystiray ma laha nin mca oo 10 sano loo dhammaystirin ma laha laakiin maanta wajeer south maxaan aaminsanahay dhallinyaro badan oo taagan inay soo noqon doonaan haddii ilaahay calaf ugu dara sababta ay tahay nin walba qows buu ka soo joodaa qowskii baa dhahay oo fadhiistay 10 sana u dhammayna sidii baa jirtaa horta inaa ogaatiin baan rabaa waxaa saa u lehay maxaa waaya dhallinyarada iila taagnayd aniga oo waxaa rabtay oo damacday kursiga kama aqli badni kama cilmi badni kamana fiicni inay ga fiican yihin maahane dhallinyaradii iyaga ahaa way ii tanaasuleen wayna ku mahadsan yihiin sababta ay tahay qaar baakood baa ila socdaa nin ina xasanka ayaa ka mid ahaa nin macallin ahaa oo maaragtay dawladdu shaqaynaya oo risaangareeyey yaabaa nimanka iyaga ahaa ka mid aha hadda ila socda muxuu gartay inuu ii tanaasula macalin daahir nin la dhaha waaya gabar walaashay oo safarta horena aan qowracay iyadana way jirtay iyadana way ii tanaasushay qatra mawliid la dhaha runtii dadkaas dhammaantood maxay arkeen
nin dhallinyaraha la soo istaajiyey oo 5 sano intuu dhammaystay 20 sano ka bacdi imaaday dadka lagu qabtay beeshii wax daran noogu jira ma leedeen cid walbana ha fadhiisato dib baa iskugu laabata cid walaalahayn oo geri oo halkan joogaan oo iyaga way la tartamaya iyaga naftooda maxaan ku boorinaa oo u sheegaa waxa adiga isla jecesha walaalka la jeclaa baa la dhahay waxaan u leeyahay maxaa waaya siyaasiyiinta isku badinina siyaasiyiinta isku badisiin lagu haynay qabanayn ayagana taas baan farayaa siyaasiyiinta iska yareeya hal wiil mase 2 wiil oo wanaagsan cidda lagama waynaya nimanka ayaga 20 sano siiya mase 10 sano siiya laakiin waxaana leeyihiin fur oo tuur ma wanaagsana cidaana ma fiicna taa markaan ka gudba arrin kale aan ka hadlayaa reer Lagboqol oo ah xilli siyaasan joognaa siyaasad sideeda way imaadaa wayna tagtaa taariikh 9 bishii 8aad markii la gaara ka bacdi nolol baa jirtaa dadka taagan oo maartay cidooda soo qaadan iska taagan ha loo sheega taayide nolol baa jirtaa ninkii dhaca nolol buu leeyahay ninkii soo galan nolol buu leeyahay taariikh 9 wixii ka dambeeya nolol baa jirtaa taa la ogaada taa markaan ka gudba midda kale reer Lagboqol maxaan aaminsanahay oo qaasatan Lagboqol South dad badan baa nala degan qabaa'ilo badan baa nala degan oo walaalahayn oo ka baxsan reer Wajeer South ina magacaabo ma aha nimanka ayaga maska dadka ayaga kuura badan bay ku leeyihiin dhulkan ina moognahay ma aha ajuuraan duu yahay iyo dogoodi yahay iyo dugarra yahaba iyo dumarixan yahayba dhulkan wuxuu ku leeyahay kuuru ku leeyahay ayaga naftooda garabkooda aan u baahanahay waan rabaa inaan la fadhiistana waan rabaa codsi waaya kuuraha waa nin walba hal kuuru leeyahay kuurihiisana jeebka ugu jiraa kuurahaadana adiga xor weh ciddaa rabtaa siin kartaa ciddaa rabtana u diidi kartaa maxaan saa u leeyahay kuuraha ayaa laisku xiqdidaynin kuuraha shakhsiga isagaa iska leh dhallinyara kuuraha shakhsiga isagaa iska leh ninkuu rabuu siin karaa adigoo qabaa'il fiirinin ninkaa rabta oo ku soo jiita oo walaalkaa oo yaa siin kartaa adigoo ka gadanin oo ka iibsanin mase wax walba u sheegin haddii aad isku mabda' noqotiin saas baa ku siin kartaa waxaan saa u leeyahay maxaa waaya siyaasadda hore 2017 dad baa kuuras ku dilay oo dhulka ugu jiraan soo nasiib darro ma aha runtii wax laga xumaada oo laga qeyrooda oo nasiib darre waaye warnimayow nolol baa jirtaa kuuraha shakhsiga isagaa iska leh waa inaan ilaalina amniga security-ga weli security-ga waa inaan aad u ilaalina haddii aan security-ga ilaalinin wax badan nooma qabsoomaya sababta ay tahay Soomaaliya 30 sano ay burbursan tahay maxay u burbursan tahay lack of security-ga waa inaan ilaalina annagoo kaashanayna askarta mase ciidanka booliska halkan jooga mase biida joogta annagoo kaashanayna waa inaan security-ga ilaalina security-ga maxaa lagu ilaalin karaa reer Lagboqol ayagaa isku danne isku taamane isku dan maxay u yihiin inay ayagaa cusbada kala qaataan dad kale intay imaadaan iyaysan isku dirin nin gafanaa imaaday dadkan kale gafanaa waa ogna 8 gafanaa baa taagan nin walba gafanuu wataa haddii adiga nin kala dartii aa isku dagaashiin kuumana oga wixii Wajeer ka dhacay maalin hore camal Raila waa imaaday Raila markuu imaanay maxaa dhacay dad baa maartay birtii waxay ku dhamaadeen taayide reer Lagboqol ka sinaada magaciina hal ahaada magaalada Lagboqol magaceeda hal ahaada korna ha jirta oo xagga amniga hal ilaaliyo
mid iigu dambaysa maxaan leeyahay xisbi la dhahaa ODM ayaan ka taaganay aniga ODM-na maxaa waaye Raila Amolo Odinga ninka la dhahaa Raila Amolo Odinga madaxweyne waddanka ninka la rajaynaya isaga waaye dadkan ku daba dhisanna dhammaantood xisbiga Azimio waaya Jubilee ha noqda mase ha noqda ODM Azimio isku yihiin marka maxaan u sheegayaa reer Lagboqol eegana codka kolloba madaxweynaha oo ridaysiin dad badanna way inii imaadeen Railana duqa waa rafaadsan liloobin intaasaan ii sheegaya iyadana sababta ay tahay dawladda maxaa wax lagu qaybsadaa bulshada wax lagu qaybsadaa siday wax ku helaan oo waa maxay sababta ay tahay Wajir County maanta dadka musharaxiinta u taagan boqolkiiba 70 ODM waay ODM oo Azimio oo Jubilee mas ODM ay u badan yihiin waxa COVID noo xiray waa waxaas marka maxaan ii sheegayaa ODM xisbiga la dhahaa inaan ka taaganahay inagana garab aan ugu siisiin annagoo rabna inaan wax badan ka helna hadduu ilaahay ma haysan dhihin markaan taa ka gudba ninka isagaan ka hadlaya berito imaanayaa Wajeero beri imaanayaa qorshaha annaga cabada muxuu ahaa Lagboqol inaan saaxanna maxaa noo saamixi waayse inaan Lagboqol saaxanna arrintaa darteed inaan aadna Wajeer kadibna aan soo laabanna ayaan rajaynaya hadduu ilaahay ma haysan dhihin oo arrintaas aan u baxaynaa cabada le 6 duurkan aan ku jirnay Lagboqol qorshaha annaga cabada inaan saaxannay ahayd nimayow taasaa ogaanaysiin reer Lagboqol maxaa kaloo nii sheegayaa sida wanaagsan oo muxubbada leh oo sharafta leh oo wanaagsan oo iyadoo qorraxda kulushahay noogu soo baxdeen ayaan niiga mahad celinayaa reer Lagboqol maxaan niiga mahad celinayaa sida wanaagsan oo aad noogu soo baxdeen oo sharafta leh ayaan niiga mahad celinayaa anigana maxaan maartay ballan ku qaadayaa waan ogahay dhaliil baan leeyahay dhaliishaan leeyahay maxaa waaye Cabdirasaaq dhaliishuu leeyahay nii sheegaa dhaliishaan leeyahay dhaliil ani malihii kursigaa dhaliil leh horta kursigaa xun ninka ugu wanaagsan Lagboqol maanta kursiga haddii la fadhiisiya kulligii wanaa ka sheeganaysiin cilladda kursiga waaya aniga cillad ma qaba intaasaan ii sheegayaa haddii dhaliil iga tirsanaayana ninkii dhaliil iga tirsanaaya aan iska hor imaanna aan wada fadhiisanna aan wada hadalna aan iscafinna taarikh 9 ka bacdi nolol baa jirtaa taa la ogaada walaal baa leeyahay siyaasadda way imaadaa wayna tagtaa marka taa iyada waxaan igu celinahay maxaa waaye siyaasadda way imaadaa wayna tagtaa ha la ogaada midiide hana la iscafiya walaal baa leeyahay dadkana yaa la isku dirin ha la ogaada midiide ugu dambayntii nin walba maxaa u malaynaya aniga hadda dadka hala fiiriya iskama socdi dad baa ila socdaa waraabaha maxaa la dhahay niman baadiye socdaan buu arkay ayagoo laafiyoonayaan oo muxuu malaynaya inay hilib wataan gacanta socodsaa u socota hilib buu malaynayaa dadka moodaya Cabdirasaaq inuu haray kursigaan ku fadhiyaa nimana haraayey waana socdaa qofka asaga hana ogaada waxaas hilib ma aha waa gacantayda maxaa kaloo nii sheegayaa reer Lagboqol maxaa kaloo u sheegayaa walaal baa leeyahay aniga maxaan aaminsanahay ninkii ila tartama oo aan wada tartanna oo iga reeya inaan gacanta qabto oo aan dhaha guul sababtay walaalnimadii baan ka xigay ninka hadda beeshan halkan fadegan oo magaca gaariga ku qoran Jeylaani uu yahay mise Cabdiqaadir Dhuwow ninka la dhaha ani Cabdiqaadir Dhuwow is my best friend ninaan wada shaqayno waaya nin aan wada shaqayno waaya laakiin maxaan ii sheegi reer Lagboqol ninka isaga nin aan wada shahna shaah aan wada cabno oo meel aan fadhiisanna
haddii ay igu xanaaqda dhibaato waaye ninkana isaga waan sogne oo maxaa u xanaaqadi marka ayada ha la ogaada walaal baa leeyahay mar walba ma kala maaranna kii soo galo labada dhinac gacanta aan isqabsanaynaa ha la ogaada